kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno degmada Bangeele ee gobolka Galguduud oo lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigay deegaamaynta lagu dhisay in ka badan 150 guri. Galguduud aan goboldo wanahayn waa waxa dhulkeena u gaarane inagu garta dibiga taliyayda qorad madow waa waxa dhulkeena u gaarane inagu garta maantay galadino soo gashay goobanimadayada munaasabadani lagu dhagax dhigay deegaamaynta cusub ee New Bangeele ee gobolka Galguduud oo qorshaha hore maanta lagu dhagax dhigay 200 oo guri iyo saldhigii booliska ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Bangeele qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wafdi magaalada Aabudwaaq uga yimid ka soo qaybgalka dhagax dhiga deegaamaynta cusub ee New Bangeele. qorshaha deegaamaynta Bangeele ayaa yimid kadib markii qurba joogta ka soo jeeda deegaanka ay garowsadeen in dhulkooda hooyo ay ka dhistaan goobo lagu nasto iyo waliba guryo loo dhisay hab casri ah si mustaqbalka dhow bulshada Soomaaliyeed ay ugu dalxiis tagaan Bangeele una arkaan horumarka ka jira deegaanka. kulan hordhac u ahaa dhagax dhiga deegaamaynta oo lagu qabtay hoolka shirarka ee degmada Bangeele ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, ganacsato, culimaadudiin, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha degmada Bangeele Ximbil Maxamed Cadde ayaa jaaliyada u dhalatay deegaanka iyo cid kasta oo Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka deegaamaynta ee ka bilowday degmada Bangeele. waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha u dhashay degmada Bangeele kuwa hadda arrinkan ka qayb qaatay oo hawsha sabaabulkeeda iyo waxqabadkeeda ku jiray inay ka qayb qaataan dib u dhiska Bangeele lagu sameeyo. Cabdiraxmaan Calas Artan oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii deegaamaynta Bangeele ayaa sheegay in qof kasta oo Soomaali ah uu guri ka dhisan karo Bangeele. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز إلهي ومعالي سبحانه وتعالى نكرسيي هنا هلكان سوون مانو ونقولنا وديالي سنة سوكا يسكاني مركز كل حكتو حمد مهد علينا مرت شرف تنقل السوق يبشر مانتي حفلة دان ونوقت تمد رنتي ميلفوق عوضة ونوقت تمد مركز الشيء سنوقت تمد قارق والله كلا يفكي مادين أدبان نقوم مهد علينا وقتك أي نوصهورين يجانسك أي نسيين إني نقل السوق يبقلان xafladan dhagax dhiga saldhigga Bangeele ujeedku uu ku saabsan tahay xafladu waa in la dhagax dhigo saldhig boolis oo magaalada Bangeele ay yeelato. waxa ku xigi doona saldhiggaas boolis hadii la idmo markii la dhiso in deegaamayn kale oo Bangeele magaalo la yiraahdo oo magaalada hore aan ahayn New Bangeele la yiraahdo halkan laga dhisi doono. waxaad arkaysaa shaxba ku qoran meeshan wax kale ma ahan waa city plan qofka city plan yaqaana magaalooyinka noocyadiisa u badnayn baa laga yaabaa. city plankaas waxaa sameeyay nin yiraahdo injineer Cabdiraxmaan waa jooga kulay isaga si fiican ugu sharxi doona hadii waqtigu noo saamaxo. waxay u samaysan tahay naqshad da magaalooyinka waaweyn ay u samaysan yihiin oo kale. waxay isla socotaa lix guri oo kasta 4 jid baa dhinacyada ka marta. 6 guri oo kasta oo is haysata 4 jid baa dhinacyada ka marta. 2 jid oo waaweyn oo min 30 ah iyo 2 jid oo yaryar oo min 20 ah. shaxda wada socoto lixda u xiran waa sidaas waa saas u dhismaysa insha Allah magaalada. balaanka marka waa la sameeyay dhulkaana sidaas u go'an yahay. marka aan jecelnahay hadii Allah idmo dhagax dhigii ugu horeeyay oo stationka galabta in la bilaabo kadibna ay ku sii xigi doonaan guriyo badan oo inta hadda shaxda noogu qoran oo dhan diyaarsan 200 iyo wax jiro weeye. insha Allah iyaguna inay bilaami doonaan. waxaan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo rabta inay dhisato magaaladaas way u furantaa lama kala xigo. waxaan leenahay culaaminaynaa Bangeele lagama xigo qof kastoo dhisanaya dhulkiisa xor buu yahay lacag baan laga qaadaynin waa loo sharciyeenayaa si free ah buu dhulkiisa ku dhisanaya. naqshada iyo engineerinka iyo jarjarida wixii ka soo haray intaas laga bixin maayo qofka asaga iska dabaraya laakiin intaas wax ka baxsan oo laga qaadayo ma jiro. insha Allah markii hadda xafladu noo dhamaatana banaankan u bixi doonaa dhagax dhigana waa sameyn doonaa. arrintaas aad baan kugu soo dhaweynaynaa inaad ka qayb qaadataan dadkiina jooga iyo dadka maqan oo qurbo joogta ah. cid kastaba ha u ka soo jeedeen meel kasta oo Soomaaliya kamid oo u dhashay uu ka dhisan karaa Bangeele. qof kasta oo Soomaaliya meel kasta degan xor buu yahay. waa dhul deegaameed, waa dhul beereed, waa dhul xoolo, waa dhul ganacsi intaba way noqotaa.
marka waxaan soo jeedinaynaa arrintaas insha allah in laga qayb qaato oo qof kastaba booska uga aadan uu ka qayb qaato aad baan idinku mahadcelinaynaa. cabdiraxmaan ibraahim jaamac oo ahaa injineerkii naqshadaynta deegaamaynta bengeele ayaa sharaxaad ka bixiyey habka loo dhisayo guryaha. waxaa anaan soo kacay inaan tafaasiil ka bixiyo barnaamijkan design-kan ama toon balaankan magaalada loo sameeyey. toon balaankan sidaad arkaysiin waa 7 sadar dhinacna waa 5 sadar marka la isku dhufto waxa weeyaan waa 35 kaasi blog waa intaas isku xidhan. blogii wuxuu ka samaysan yahay 6 boos. 6 boos marka 35 lagu dhufto waa 210 boos weeyaan oo 30 by 30 nacam 210 baa degi kara qof oo qofkiiba uu helayo hal boos oo booskiiba yahay maxay 30 by 30 macnaheedu waxa weeyaan magaaladii intan uma ahaanayso waa sample waa naqshad waa la jiidaya waa la fidinaya extension baa lagu sameeyaa inta dhinacba waa loo riixaya. macnaha balaankan loo sameeyaa ma aha wax la iska xariiqay ama la iska qorqoray. macnuhu wuxuu yahay boos kasta oo meeshan ku yaalay inuu mudnaantiisa helo. mudnaantiisuna waxa weeyaan inuu wadadiisa helo weeyaan macnuhu. marka lagu leeyahay balaan baa la sameeyaa waxa weeyaan naqshada in la sameeyo macnaha. naqshada marka in la sameeyo macnaheedu taayna waa in boos kasta oo meesha ku yaalay wado uu helo. wadooyinku sida arkaysiin kuwa gudbaya saa u socdaay waa 30 kuwa saa u socdaana waa 20 marka waa wado waafiya ma sha Allah kullay dadkeenu caadi leeyna dhaw lagu soo durki doona oo in la googooyo suurtagal oo la galo laakiin ma haboono kullay in saa loo ilaaliyo oo shakhsi loo toobaro xogtan haya qof kasto boos goosanayana booskaasiya markuu booskaasina macnaheedu waxa wadadii uu ka ilaalinaya. hadda waxa jira dawladda hoose maamul kasta oo degmo la sameeyaa uu yeelanaya. dawladda hoose waxa jira qolo balaaninka qaabilsan oo farsamadiya oo sameynaysa marka dhulkii la jeexjeexayo ama la googooynayo in la kaxaysto suu dadkii uga ilaaliyo maxay wadadan marka waxa maamulaysa gudi ama shakhsi general loo xisaaraya. marka insha Allah hadhow markay noo dhisantay noo ballaarato meesha hirgasho ayaa waxay tani qiimo yeelanayso iyo cid ilaalinaysa iyo cid dhowraysa la sameyn doona. hadda laakiin bloggaas wuxuu ka samaysan yahay saa waa u 60 saana waa u 90 ga iyo 60 ga waxa afarta dhinac ka maraya afar wado laba wado 30 oo laba dhinaca iyo laba wado 20 by 20 oo dhinacyada kala. marka wadadani waxay muhiim u tahay boosaska oo dhan. eega 6 boos meesha ku yaala hal boos oo bilaawadi ma jiro. afarta boos ee kaarakonayaasha waxay leeyihiin min laba wado labada dhexdiina min hal wado helayaan. macnuhu marka waxa weeyaan qofkii marka saa loo siiyo wuxuu helayaa the boss wadadiisii wata. wadadana waxay faa'iido u tahay meydka laga saaray qofka haddii loo timaado ila meydka kor looma saaray haddii wada ee gacbuda qof kale hadda dhib bay naga haysto. wadooyinku waxay noqdeen wax wada checkpoint oo isku wada xiran oo wada caqabada. marka macnaheedu waxa weeyaan wadada meydka laga saaraya leerka ku soo maraya biyaha ku soo maraya de nolosha dhan baa ka hirgasha. marka kullay khiyaartu way badan tahay barnaamijkan u taagan ee la sugayo in hadalka loo qeybiyo hadalka la siiyo. marka waxay la tahay meel kasta oo la binaynayo waxa ku qurux badan tahay in naqshadeeda loo sameeyo. naqshadeeda marka loo sameeyana wax kala maaha wadooyinkii baa la cadeynaya. marka insha Allah waxaan ku dardaarayaa in xogtan la hayo waana la sii jiidi doonaa magaalada marka ay weynaato in marka dadku boosaska marka la siiyo ay iska ilaaliyaan inay wadadii soo galaan. qofkii soo galana in talaabo sharciya laga qabto oo hawshan la ilaaliyo. haddii kale waxay naga noqonaysaa waxay naga laaqmaysaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaybihii kala duwanaa ee bulshada ayaa si isku wada mid ah u soo dhoweeyey deegaamaynta laga bilaabay bengeele. waxaan marka ku talinayaa in dhammaan loo istaago in dib loo dhiso bengeele. kulli anigu waxaan noqonayaa shakhsiga koobaad oo boos koobaad qaata. deegaankan bengeele hadday noqoto xoolaha hadday noqoto beeraha iyo hadday noqoto deegaamaynta istiraatiijiyadda gobollada sida ay isugu xiran yihiin waana soo dhawaynayaa. dadka u dhashay deegaankan nin walba deegaankiisa isagaa dhista. bengeele waa furan tahay ku soo dhawaada aqalada ka dhista Nairobi ma lihid Yurubka aad ka dhigtay guriga ma lihid tanaad leedahay. in dhulkaan bengeele laga qayb qaato dhismihiisa iyo waxqabadkiisa in la iskugu yimaado ilaahay baa mahad leh. day ganacsataa tahay day culmaa udiin tahay hadday tahay gabdhaha dhalinyarada odayaasha intaba mahad baan u celinaynaa ka soo qayb galay. waxaan ku boorinaynaa annagu waxaa loo baahan yahay dhulka degmo iyo gobol labadaba waa jiraan. dibad hadday noqoto gobollada annaga nagu xeeran
hadday noqoto dadka dibadda ah oo jaariyadaha ah hadday noqoto dadka ganacsiga ah in laga qayb qaato oo la nooleeyo oo loo fahmo degaanka iyo ciid iyo dhulkuba inuu daabahay waxaan ku dardaarmayaa insha allahu ilaahay idankiisa waa la bilaabay guul iyo khayr inay ku dhammaato degmo iyo khayraad inay ku dhammaato sida loo sheegay nacfigiisu waa badan yahay ha noqoto xoolo beer ha noqoto magaalayn ha noqoto istiraaji ha noqoto waad garanaysaa nina wuxuu sheegmay bangeelle waxa lagu fadhiyona waa ka qayba badanya sababtoo ay tahay waxaa lagu xisaabtamaa meel walbaba meesha ay ku taallo istiraajiga mar haddii halkan ku ismanaa la iiga eegayo asharaaf guntaada ah oo la ixtiraamaye intaanoo ahaalkaya hadday igu igraamayso intaanoo ahaalkaya hadday igu igraamayso ansax weeye madashaanu iyo kulaan ikhyaarade waa ayaamulkhayr maanta iyo faysta iyo iide aqbal weeye maasha alle ducaadu aamiine ilgayriyo xaflada loo goglo urur dharaareeda haddii laygu aawilay murtida waan agaasimiye ani istaaga maantoo kalaan orah ka dhibaaye ani istaaga maantoo kalaan orah ka dhibaaye hayeeshee ujeeddada haddaan erey ka falloodo hayeeshee ujeeddada haddaan erey ka falloodo aas-aaska maantaya shirkaan idiibka loo asay unugiyo ardaa dhigista iyo udubka loo taagay orodkiyo abaabulista iyo sababta loogay aqbal baan ilaahow rabaa inay ahaataaye anigu waxaan ahaa ninkii riiggaan maalintii la mudahayo dhulka la xaarxaaray saas birta loo dhigay riiggana lagu sii daayay ninkii watay baan ahay oo dhagax dhigay faarax xundulle nin la yidhaaho dhulbaantaa baa dhisayo riigga watay waxaa weeye maalintaasi hadda inta ka dhexela taariikhda bangeelle waa laga warhayaa ummaddii degtay say u aflaxda waa laga warhayaa nabadda iyo reer miyiga 4,000 iyo 5,000 iyo 6,000 ayaa idahooda ku gaaraan bangeelle markii la yidhaaho wuxuu ku yaalaa meel balaaran oo weyn oo waxa adduunka loo dhigi kala aanay jirin dalkeeda iyo deegaankeeda iyo istaraatiijiyadeeda nin walbana waa ku taamayaa inuu yacni bangeelle ama dego ama wax ka qabsado ama wax ku tabcado meesha sidaasa waxaa loo baahan yahay in maantay laga fakero oo yacni maaragtay wax loo huro oo la deegaameeyo oo la dego oo yacni maaragta maal iyo hanti iyo maal iyo muruqba la geliyo intaan timid oo meesha hadda ma la qaadaysana waa mahadsan yihiin inta dambe oo imaanaysana oo yacni ka mid oo dhisan doonto oo degi doontana waa mahadsan tahay markaa intaa ka gudbo waxaa waddankani u baahan yahay degmo dhan oo hadda la bineeyey oo yacni maaragtay la dhagax dhigahayo stationkeedii weeye waxay u baahan tahay dhaqaalo fara badan juhdi badan maal fara badan waxaan ku talinayaa ummaddu inay ugu dhabar adeegto uguna dulqaadato inta hadda dhisanaysa iyo inta deegaanka ka dhow waxaa loo baahan yahay dalkaaga iyo deegaankaaga yaa ku hudhan nin walba dalkiisa iyo deegaankiisa ayaa hudhan ciidan ayaa nin walba hudhan waxaa loo baahan yahay in wax laga qabsado in la dego in la deegaamaysto in dadka kan maanta halkan jooga iyo dadka maqanba ay ka qayb qaataan dadka dabadda jira oo soomaaliyeed oo gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay ah oo ama dabadaha dhisanaya ama dabadaha yacni wax ku haysta
waxaa loo baahan yahay inay yimaadaan inay hanti ka dhistaan oo hanti gashadaan inay maalgashi ku samaystaan inay shirkadaha u soo diraan in yacni maalinka maanta ayay degan tahay ay wax ka qabsadaan oo u soo gudbaan oo u soo gudmadaan waxaan ku darayaa intaa xoogaa bangeellaan dadka uga aqoon badanayo bangeelle horta waxaa la dhisay 1984 ayaa la dhisay oo uu deegaan dad ku nool yahay noqday 33 sano ayuu wuxuu ahaa magaalo lagu nool yahay oo degan yahay oo miyi leh intaa waa intaa bangeelle kelmadda bangeelle haddii la macneeyo waa laba kelmo oo Soomaaliya oo la isku geeyay waa ban iyo geel waa bankii geel waxay dhulkaas ku fadhiyaa waa meel ban ah oo bannaan geeluna aad ugu fiican yahay ugu tarmo ugu cayilo dhir geela saacidah baa ka baxda 16 kiiloomitir oo isku weera weeye dhulka bannaanka ah oo banka ah oo dhirta dheer lahayn 16 kiiloomitir oo isku weera buu horta ku fadhiyaa sidaan xogogaalka u nahay bangeelle magaalada caabuda waxay u jirtaa 23 kiiloomitir dhuusamareebna waxay u jirtaa haddii alla ku idmaayo waa 95 oo laga jaray inta caabuda ay u jirto horta magaalada asal ahaanteedu waa saas waa meel deegaanka ku fiican waa meel mixed family ah oo haddii la doono hadda beera in laga beero dhuldaaqeedna noqon karta qudaarta oo dhan dalagga qudaarta oo dhan nooc kasta ha ahaado uu ka bixi karaa waxaa ka baxa dhir daaxulo la dhaho dhir dharjo la dhaho dhir nagaardeeb la dhaho dhir canyal la dhaho dhir waxay leedahay dhirta kaloo dhan ka jilicsan oo qudaarta shabahda markii dhirta miyiga loo eego yaa ka baxa intaa waxaan uga baxayaa haddii alla ku idmahayo CV-ga bangeelle iyo waxa uu yahay baan uga baxayaa in kale waxaan mar labaad u hambaliyeynayaa dadkii soo abaabulay ama isku dayay ama isku xilqaamay 23 sano meesha magaalada ahayd dadka hadda isku dayay inay dib u 33 sano dadka isku dayay inay nooleeyaan oo magaalo ka dhigaan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo annaguna waa kala qayb qaadanaynaa halkaa waxaa ka muuqda horumarka ballaaran oo ay ku tillaabsatay degmada bangeelle iyo dadkiisuba waxaana aad ugu faraxsannahay mataqaanaa qaybtaa horumarka leh oo maanta intaan la dhex dhigahayo waxaana u rajaynaynaa degmada bangeelle waxyaalaha ka dhiman oo kalena si wada jira oo shacabkeeda iyo bulsho weynta kale ee taageertaana ay ka hirgelin doonaan sidaa daraaddeed ayadoo waqtigu gaaban yahay waxaanu markaa ugu baaqaynaa cid kaste oo gacan ka geysan karta guda iyo dibaddaba ha ku noolaato cid kastaba ha ahaato maamullada nooc kasta ha ahaadeen in ay garab ka siiyaan taageeridda horumarinta laga rabo degmada bangeelle in laga fuliyo oo hadda u horreeyo saldhigga oo maxkamaddii ku xigayso oo garoonka cayaara ku xigirayaan oo iskuulkeedii dhexe ama sare ku sii xigahayo iyo ballaarinta nidaamyadeeda kala gedisan sidaa daraaddeed anigoo mar labaad ku celinahaya maaragtay u mahad celinahaya dhammaan shacab weynaha maamulkooda iyo degmada bangeelleba waxaanu iminka ku soo gabagabaynaynaa xafladda tan haddee bangeelle waa hormaray waana hormari doontaa insha allah cid kasta oo jecel horumarkaagana way ka qayb qaadan doontaa annaguna dee waxaan nahay shacabkii bangeelle ee doonahaya inay horumarkaa gaaraan waanu gaari doonaa cidna ku halayn mayno bangeellana annaga weeye bangeellana annaga ah intaasi kadib ayaa dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay dhagaxdhigga deegaamaynta waxay u dareereen goobtii ugu horraysay ee laga dhagax dhigay saldhigga ay ku shaqayn doonaan ciidamada booliska ee bangeelle si kastaba ha ahaatee deegaamayntan ka bilaabatay bangeelle ayaa ah horumar kor u sii qaadaya bilicda iyo baaxadda degmada guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegaynay degmada bangeelle ee gobolka galguduud oo lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayey 200 oo guri iyo saldhig barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yaalla cabdulaahi jaamac tani intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo Nainagu garta dibigeed
gobanimadayada guuloo wadkay maantay galladinoo soo gashay gobanimadayada guuloo wadkay maantay galladinoo soo gashay gobanimadayada guuloo wadkay maantay galladinoo soo gashay gobanimadayada